ugu dambeyntii Ruya taxanaha Yaabani ama duurjoogta way macsalaamayso oo way ka tagtay. Markii ay Ruya dhimanaysay ama wax xaalad adag ay ku jirtay Yaman Cali halkee buu ku maqnaa. Haddaba cidda ka dambeysay dhimashada Ruya ama wad sababsatay waa kuma masarxaanba mise waa qof kaleento. Ma laga yaabaa Aasiya Alaas in ay fursad kale siiso maadaama ay hadeertan mar kale kulmeen, ma laga yaabaa Janice kale nolosheeda in ay ku siiso. sidoo kale saaxiibayaal Aasiya familkeedii way heshay iyagoo weliba Turkida xijaaban. Haddaba ma laga yaabaa Aasiya familkeeda inay aqbasho qaab noocee ayayna ku aqbali doontaa iyadoo halahan sano jirto in ay familkeedii hadeertan dhahan waxaa tahay gabadheena. Jasuur iyo gacalisadiisii Shaaqla xaaladooda xagee mareysaa inkastoo siisoon bolamyada hadeertaa soo dhaafnay aanay kasoo waramin laakiin bolamkan waa qasab inaan ka hadalno. Haddaba saaxiibayaal qodobadaas aan idin soo sheegay iyo qodobo kale dhowr waxaan kuugu sheegi doonaa muuqaalkan gudihiisa aan kuugu falanqeyn doonaa. Haddaba haddii aad nagu cusubtaan nagu soo biir gambaleelkan furasi ku soo gaara muuqaaladeena. Haddii aad nala joogteen like noo saar oo comment share like dhiirigelinayno tahay aad ama santaa dawaan si guda galno. Haddaba saaxiibayaal bolamkeena 38 waxa uu ku bilaabanayaa Ruya oo Hande la joogto. Hande ay la joogtaa sidoo kale intana Hande canuga ay ka qaadaysaa sidoo kale Ruya guri ay ku xireysaa. Labada sano ee la soo dhaafay Ruya ayadana Yaman Cali way ka maqneed oo Hande ay u xirneeday waliba qol faarq oo kaligeed ay ku xirneed Ruya. Si lacas uu adkeysan weynaysa ugu dambeyntii way soo baxsanaysaa kadibna waardiyaha ayaa arkaya isagoo ku qaylinaya istaag laakiin ayada ma istaagayso ku malcadaysa xabad ayuu gadaal ugu dhifanaya meesha ay Ruya ku dhimanaysa. Subaxiina meedkeeda banaanka ay lagu soo xoraya iyadoo Yaman Cali loo wacayo si uu u aqoonsado wajiga gacalisidiisii Ruya. Ugu dambeyntii Yaman Cali xaaladiisu way xumaanaysaa waxayna noqonaysaa mid xad ka bax sidoo kale intana Ruya markii la soo qaado la keenay dhakhtarka kadibna meedkeeda la rabo in la dhaqo Yaman Cali ayaa kaligiisa qolka u galay si uu la hadlo kadibna wuu dhigaha ugu la hadlaya wuu dhunkanaya wuxuuna aad ugu qaylinaya ha iga tagin ma iga tagi kartid sidaan ha igu sameynin waa dareemi karnaa qof gacalisidiisii ka dhimatay. Dhankan kale Jasuur iyo Shaaqla gacalisidiisii way isku dagaalayaan balwada xageeda ay isku dagaalayaan. Shaaqla ayaa Jasuur si xun ugu qaylinayso sidoo kale intana Jasuur isagana wuu xanaaqaya waliba isagoo ku dhahayo adiga mar waxaad i weydiinaysaa lacagta meesha aan ka keeno talaabad walba meesha aan qaado iyo wax walba oo aan sameeyo aad ay ugu qaylinaya. sidoo kale intana waxa uu ku dhahaya aniga dhiigayga iyo nafteyda waxaan u huray si aan adiga kaaga farxiyo oo aadan hal mar u ciishoonin oo aan kaaga qosliyo. laakiin Shaaqla maxay ugu jawaabaysaa ma garanaysaan oo waxay ku dhahaysaa waa ku saxanta wax walba inaad sameyso laakiin aniga waan shalaynaya ay ku dhahaysaa Jasuur sababtoo waxaan ka shalaynaya guurkaan adiga ku guursaday. oh my god nolosha ma sidaan ay noqonaysaa guurka kadib cajiib way run ahaantii. dhinacan kale deerinaya meel fadhiso ayadoo dhigeysanayso hees qiiro leh sidoo kale Alaas ayaa aad u qiiranaya iyadoo weydiinaysa xaaladiisa laakiin isagoo ma jawaabayo. isla mar ahaantii Alaas telefoon ayaa u soo dhacayo waxaana soo wacaysa Nislihan ayadoo ku dhahayso u sheegayso geerida Ruya isagana wuxuu ku dhahay si degdeg aan ku imaanaya laakiin Yaman Cali wuxuu ku maxadeegaya in uu raadiyo dilaaga dilay Ruya isagoo wato katiinadii ahayd jiheeyaha wuxuuna ku dhahayaa jiheeyaha wuxuu tusinayaa wadadan waana raadinaya gacalisideeda qofkii dilay. wajigan kale ayaa nala tusaya Aasiya ayaa familkeedii u ooynayay qaasatan aabaheed isagoo ku dhahayo gabadheeda quruxda badneed ugu dambeyntii waa soo noqotay. Aasiyana ma aqbali doonto inuu aabaheeda cidaan ay yihiin dhammaan familkeeda ma aqbali doonto laakiin aad ay u xanaaqaysaa ayagana sidoo kaleento way dejinayaan balse ma maqlayso warkooda. sidoo kaleento Aadam ayaa la hadlaya isagoo ku dhahayo kasoo qaad inay waxba jirin laakiin ilaa ay jawaabta ka imaanayso halkan ay joogaysaa. DNA ayaa la baaray sida ay la tahay laakiin jawaab ayaa la sugayaa. wajigan kale Yaman oo aad u xanaaqsan una dhaqmayo sida ay Raabiya qabo ayaa wuxuu ku dhigayaa ninka lagu magacaabo Seerxan. goosgooska hore waxaan iigu sheegay Seerxan inuu isaga ka dambeeynin saaxiibada wax walba run ay noqdeen. sidoo kale intana Seerxan ayuu ku dhigay isagoo ku dhahay Ruyadeeda adiga iga dilay wax walba adiga iga qaatay si xun ayuu la hadlaya laakiin Seerxan wuxuu isku dayaa inuu dejiyo una la raadiyo cid dishay laakiin Iskandar iyo xaaskiisa Hande meesha ay taagayeen. Iskandar ayaa wuxuu isku dayaa Yaman Cali isagana in uu toogto biskoolada ayuu ku qabanaya. wajigan kale saaxiibayaal Aasiya waxay la joogtaa familkeedii oo ay sugayso jawaabta ilaa ay kasoo baxayso laakiin si lama filaanayo waxay TV-ga uga arkaysaa geerida Ruya. run ahaantii aad ay u murugoynaysaa. maalinkii xigtay qof waliba waxa uu ku qiiroonaya qabriga Ruya
maadaama Roya la duugayo. Laakiin Aasiya ayaa si lama filaan u imaanayso ayadoo hab siinaysa walaalkeeda Yamaan una taxsiinayso iyo sidoo kale Jaasuur Alaasna meesha uu taagan yahay oo indhaha ayuu ku hayaa. Laakiin Aasiya keligeeda ma ahan oo garab ayaa la socdo kaasoo ah Aadam dhan waliba ee aadana kama harayo. Sidoo kale wuxuu ku dhahayaa sida ugu dhaqsiyaha badan waa inaan baxnaa anaga. Laakiin meesha waxaa jooga Jaasuur oo madax adag sidoo kalena gaangister noqday. Aadam ayuu ku qaylinaya isagoo ku dhahay mida aniga walaasheen waa gaala qaada haddii aad adiga qaadan kartid. Laakiin way dejinayaan xaalad ugu dambeyntii waxay fadhiisanayaan meesha kafeteriyada oo shaaha lagu cabo waxay dalbanayaan shaah. Laakiin Aadam wuu daahsan yahay isagoo ku dhahay Bushran keen Jaasuur wuxuu ku dhahay igraal noqo Bushra yaa la dhahaa. Aasiya qoslayso iyadoo waxay ku dhahaysaa Bushra waa magacayga dhabta. Jaasuur isagana ku kaftamaya ayaa isaga wuxuu ku dhahayaa waayahay waa hagaag hadda kadib waxaan kuugu yeeri doonaa Aasiya Bushra. Wajigan kale Aasiya waxay isku dayaysaa inay aado xaggaas iyo suuliga. Sidoo kale ninkii jacaylka waa la dhadhanka ka dhigay Alaas lagu magacaabayay wuu baxayaa sidii nin aanan hore waxba u soo helaynin oo wanaagsan oo kale Aasiya ayuu u tagayaa isagoo ku dhahayo Aasiya nolosheeda aniga waan ku jecelahay sidee tahay ma fiican tahay aniga ma fiicni ayuu ku dhahayaa. Aasiya sidoo kale waxay ku dhahaysaa aniga ma fiicni laakiin waxaan ka fiicanahay markii aan adiga kula joogay sida aan ahaa. Alaas wuxuu ku dhahayaa ubadkeena waxaan jeclaan lahaa inay gabar noo noqoto yacni sida gabadha isagoo ku riyooday oo kale. Sidoo kale wuxuu ku dhahayaa waxaan u bixinaynaa magac qurux badan saddexdeena waxaan aadaynaa dalxiis. Nolol ayuu samaystay ka waran isaga oh my god qoftan nolol kale ay samaystay isaga wuxuu ku fakarayaa inay Aasiya u noqoto xaaskiisa sidoo kale gabadhooda ay korsadaan maba ahan ka waran ninkii ku dhahay gabadhan soo xaqadii aad rabto. Laakiin qoftan waa Aasiya oo wax waliba way ku madax adeegaysaa kuna dhahaysaa aniga kuma jecli mana ku jeclaan doono horeyna waan kugu qaldamay haddana mar kalena kugu qaldamay. Sidoo kalena Alaas dhaawac ay u geysanaysaa oo soo baxaya. Aadam ayaa albaabka istaagan Alaasna wuxuu ku dhahay waa maasantaa wiilkii diinta lahaayo yacni isaga ma ahan kuwa diinta leh Turkida diinta leh. Sidoo kale tan kuwan waa Turkida diinta leh Aadam iyo meeshaas ayuuna Aadam Alaas ku jaasteynaya wayna soo kala tagayaan. Aasiya waxay u imaanaysaa Nizlihaan iyo midkaan lagu magacaabo Govini dhexdooda macal Alaas meesha oo fadhiya. Sidoo kale Alaas ayaa wuxuu ku dhahayaa aniga waan isjecelnahay laakiin Aasiya ilaa ay qabanaayo waxa ay soo qaadanaysaa waxayna isku dayaysaa dadka hortooda inay Alaas afka ugu dhufato. Laakiin Govini iyo Nizlihaan ayaa kala celinayo. Wajigaas ka soo gudubnay saaxiib wajigan kala imaano deereen hooyadeeda waa Hande iyo sidoo kale aabaheedan waa Alexander laakiin way ceeriyeen oo guriyeen nagama soo gali kartid ay dhaheen. Ayadii Yamaan ayaa soo raacay. Yamaanna waxa uu arkay qoraalka derbiga ku qoran ee Roya ay qortay. Sidoo kale wuxuu ogaaday Roya inay gurigan ku dambeysay gurigan ay ka dhaceen wax waliba. Laakiin deereen ayaa hooyadeeda soo deerinaysa Hande kuna dhahayso marawina muuqaalka marka la arko guriga soo galin. haddaba saaxiibayaal boolomka 38 halkan ay kusoo gabagaboobaya haddii aadan saaxiibayaal nagu soo biri wali nagu soo bir sidoo kale intana like comment share inta noo saar gambaleelkan furo muuqaalkiisa inta kulmi doon waxaan kaga tagay sidaas nabadgelyo. Assalaamu calaykum.